wuxuu noqon doonaa muuqaal leh bilow ilaa iyo dhammaad anagoo u sharxi doona si step by step ah lana fahmi karo. waxaa kaloo aad ogaanaysaan in muuqaalada aan soo gudbino aan u samayn doonno qaab koors ahaan, koors welibana inta qaybood ay nala gaartaba aan u samayn doonno playlist u gaar ah si aan qof weliba ugu dhex wareerin muuqaalada. muuqaalkeennana maanta waxaan kaga hadli doonnaa sida loo samaysto akoon 1XPARTNER ah. muuqaalka xigana wuxuu noqon doonnaa marka nala soo aqbalo kadib sida loo samaysto ama loo abuuro promo code ku gaar ah iyo sida loo adeegsado promo code-kaas. haddaba aan u wada bilowno si wada jir ah. inta aadan waxba bilaabin ka hor waxaad u baahan tahay inaad marka hore aad soo samaysato Gmail haddii aadan lahayn Gmail. haddii ay jiraan qof aan aqoonin sida loo samaysto akoon Gmail ah, ha inooga reebo qaybta faallada ee hoose ama commentiska si aan ugu soo diyaarino muuqaal gaar ah. mahadsanidin. aan bilowno. intaanan wax kale bilaabin waxaan u baahannahay ugu horeyn inaan soo samaysano ID aan weli lacag lagu shubin oo lagu ciyaarin. player ID ayaan soo samaysan doonaa oo intaanan bilaabin inaan akoon aan ka samaysano 1XPARTNER. waxaan tegi doonaa applicationka 1xbet. markaan furno in yar ayaan sugi doonaa. markuu inoo furmo kadibna waxaan ka samaysan doonaa player ID. sidaad arkaysaan applicationku inoo furmay. waxaan iska hari doonaa akoonka inoo furan ama ID-ga inoo furan aan iska hari doonaa. logout ayaan dhihi doonaa. kadibna waxaan samayn doonaa oo aan samaysan doonaa player ID cusub ayaan samaysan doonaa. si aan u samaysano ID cusub ama player ID cusub waxaan taaban doonaa halka ay ku qoran tahay registration. markaan taabano waxaan kusii dhufan doonaa in one click meesha ay ku qoran tahay. in one click markaan taabano foomkan ayaan buuxin doonaa. halka koowaad Soomaaliya ugu daa, lacagtana US dollar ka dooro. wadanka waayo Soomaaliya 1XPARTNER-ku wuu ogol yahay, 1xbet-kana wuu ogol yahay. marka wadanka Soomaaliya u daa, lacagtana currency-gana dollar ka dhigo, casino plus x games ka dhigo. kadibna halkaas promo code-ka aad rabto inaad ka samaysato geli. samafal 252 waa promo code-keena. kadib saddexdaas meel aad tig saaraysaa. kadibna calaamadaas tigda ah ayaad taabanaysaa oo greenka ah ama cagaarka ah. markaad taabad kadib sidaas ayaad u samaysay. ID cusub ayaan haddeer samaysanay. cusub ayaan samaysanay. ID-geena cusub screenshot ayaan ka qaadanaynaa si uu mobilka inoogu keydsamo oo mobilka ayaan ku keydsan doonaa. kadibna waan save garaysan doonaa. kadib ID-gan hadda waxaa loo baahan yahay inaad buuxiso foomkiisa inaad buuxiso. waxaan aadaynaa menu meeshay ku qoran tahay. kadibna waxaan ka sii tegaynaa halka ay ku qoran tahay ID personal profile si aan u buuxino. markaan ku dhufano fill in personal data meesha ay ku qoran tahay ayaan sii taaban doonaa. halka koowaad waxaan gelin doonaa magaca oo magaca koowaad ayaad gelin doontaa magaca koowaad. halka ay surname ay ku qoran tahayna waxaad gelin doontaa naanays ama wax alaal waxaad doontid oo magac gaaban ah ayaad gashanaysaa. middle name-na waxaad gelinaysaa magacaaga labaad ayaad gelinaysaa. tusaale ahaan Amira. halkaas waxaad gelinaysaa naanaysta oo halkaasna waxaad gelinaysaa middle name-ka waa Yusuf. waa tusaale oo keliya. ID documentigana waxa waaye document type-na ID waxaad doonta ama waxaad haystaa ayaad ka buuxinaysaa. muhiim ma inaad haysatid laakiin waa iska buuxinaysaa. sida oo loo buuxiyo profile-ka 1xbet qof walba ayaa yaqaana oo habkaas ayaad u buuxinaysaa. kadibna waad save garaysanaysaa. haddeer sidaad arkaysaan waan buuxinay laakiin weli waxaa inoo dhiman username. weli waxaa inoo dhiman oo aan buuxinin username-ka iyo email-ka iyo phone number-ka. phone number-ka waa muhiim. email-ka waa iska dhaafi kartaa laakiin phone number-ka taleefankaaga inaad halkaas aad ku active garayso waa muhiim. haddii taleefankaaga uu ku active garaysnayn oo 2 step verification kugu xirnayn qaybta partnerka in lacag ku soo gudbiso ama inaad lacagtaada aad la baahdo xiriir ay kugu noqonaysaa. marka dib dambe markii lacagta hogaa noo dhawaato ayaan active garayn doonaa oo ama diribtidna haddana waa active garayn kartaa. waxaan isla aadi doonaa 1XPARTNER website-kooda ayaan isla aadi doonaa oo Google-ka ama Chrome-ka aad isticmaal application-ka browser-ka aad isticmaashay aad tagi doontaa. kadibna waxaad ku qori doontaa 1XPARTNER 1xpartner.com. markaad qortid halkan qaabkan ayuu soo bixi doonaa. halkay ku qoran tahay registration aad sii taaban doontaa.
registration markaad sii taabato foomkan ayaad buuxinaysaa halka koowaad waxaad ku qoranaysaa magaca gaaban oo aad rabto inaad mar walba aad ku gasho 1XPartner account-kaaga tusaale ahaan Amira ayaad qoraysaa 45 oo kale iska dheh password ayaad u samaysanaysaa passwordka sidaad ogeedeen hadda waxaan soo koobiyeysanay ID-ga aan samaysanayna ayaan soo koobiyeysanay ID-gaas ayaad halkan baas aan ku dhaynaa markaan koobi dhahno kadib halka password ay ku qoran tahay aan si taaban doonaa oo baas aan ku dhihi doonaa mar kale aan baas dhihi doonaa intaas waxaan diidanayaa inaan password aan gelgelino halkaas website ay ku qoran tahay waa additional adirtid waa iska dhaafi kartaa oo halkaas adirtid hadii website aad leedahay website aad ku buuxsanaysaa hadii aadan wax website aan leeyahay website files aad iska gelinaysaa ama maya adirtid waad iska dhaafi kartaa waa additional oo daruuri ma ahan waa iska dhaafi kartaa site category meesha ku qoran tahayna sports verification oo hadda inoo dooran waxaad doontid ayaad ka dooran kartaa muhiim aha waxaad doontid ka sii dooro sport verification u daa ama maya sports news ilaan waxaa laga wadaa oo kaliya waxa aad uga hadlayso website-kaaga waxaad doontid ka dooro kadibna luqadda English ka dhig hadday English ku ahayn waxay ku leeyihiin xagee soo ogaatay inuu jiro 1XPartner advertising iska dheh ayisiin ayaan ka arkay first name meesha ku qoran tahay magacaaga koowaad geli last name meesha ku qoran tahay magaca ugu dambeeyay geli ama magacaaga labaad iska geli waa waxa asaas u weyn maahan emailka halka ay ku qoran tahay emailkaaga aad gashanaysaa oo gmailka aad soo samaysatay ama gmail haddaad leedahay gmailkaaga aad gelinaysaa waa daruuri halkaas waa important halka ay ku qoran tahay messenger waxaad ka dooranaysaa waxa aad isticmaasho haday WhatsApp yihiin haday Telegram yihiin waxa alaal waxaad doontid ayaad ka dooranaysaa Skype iyo waxaad doontid ka dooro WhatsApp iska dooro kadibna phone number-kaaga aad gelinaysaa WhatsApp-ka aad ka isticmaasho phone number-ka markaad gelinayso lix xaaladaad ka bilaado wuxuu leeyahay qalad waay marka 2526 ayaad ka bilaabaysaa plus 2526 furaha oo dalka aad ka bilaabaysaa haddaan tijaabino oo lix aan ka bilaawno waan fiirin doonaa mar kale ayaan gelin doonaa lambarkeena markaan lambarka aan gelino sidaan ogsoonahay hadda waxaan soo koobiyeysanay player ID-ga ayaan ka dooranaynaa halkan waa meesha aan loogu diri lahaa lacagta markay gaarto $30 player ID aad ka dooranaysaa player ID markaad doorato halka hoose waxaad gelin doontaa ID 1xbet ID-gaaga aad gelinaysaa oo hadda aan soo koobiyeynay ayaad gelinaysaa markaad gelisid halkaas tick ayaad saaraysaa kadibna register meesha ay ku qoran tahay ayaad taabanaysaa markaad taabatid kadib sidaas ayaad isugu register garaysay saad arkaysana waa u diiday lambarkii leh aan ka bilaabaynay oo wuxuu rabaa in laga bilaabo furaha wadanka plus ayaan taabanaynaa kadibna 252 ayaan raacin doonaa 252 markaad raaciso haddeer uu ogolaan doonaa sidaad arki doontaan register aan taaban doonaa register markaad taabato uu ogolaan doonaa oo sidaas ayaad isugu register gareyn kartaa 1XPartner haddeer waad arkaysaa wuxuuna leeyahay waad ku mahadsantahay isdiiwaangelintaada application-kaaga waan dib u eegis ayaan ku samayn doonaa kadibna anaga ayaan muddo 48 saacadood gudahood jawaab ku siin doonaa ay ku yiraahdeen marka waxay ku soo diri doonaan baqshad ay ku soo diri doonaan waa inay ku ogolaadeen oo aad ka mid noqotay 1XPartner warqadaas markay ku soo diraan oo ay ku ogolaadaan kadib ayaan wax walba aan isla arki doonaa haddaba waxaan aadi doonaa gmail-kayga maadaama ay ka soo wareegatay dhowr saacadood gmail-ka ayaan aadi doonaa markaan gmail-ka aan aadno sidaad arkaysaan waxaan kasii taaban doonaa qaybta settings ayaan kasii taaban doonaa qaybtaas bidix ee settings ayaan taaban doonaa all inbox ayaan kasii dooran doonaa si aan u aragno dhammaan email-adana loo soo diray sidaad arkaysaan no reply meesha ay ku qoran tahay email-ka ay ku qoran tahay no reply oo kaas ah your application was accepted ay ku qoran tahay wuxuuna leeyahay application-kaaga ama codsigaaga waa la ogolaaday ayna leeyihiin way noo soo direen sidaad arkaysaan waxayna leeyihiin waad ku mahadsan tahay ihtimaamka aad siisay affiliate programkeena application-kaagana siis guul leh ayaa loo fiiriyey kadibna website-kaaga hadda waxaa lagu daray ayna leeyihiin qaybta partnerka ayaa lagu daray
1XPARTNER akoonkaagana waa la verify gareeyay inay leeyihiin marka wayna soo aqbaleen maadaama haddeerna soo aqbaleen talaabada xigta oo aan qaadi doonno ayaa waxay tahay inaan codsan promo code anaga noo gaar ah inaan samaysano haddaba si aan u samaysano waxaan dib ugu laaban doonaa partnerkeena ayaan dib ugu laaban doonaa partnerka markaan dib ugu laabano calaamadaas falaarta ayaan sii taaban doonaa markaan sii taabano halkan waxaan gelin doonaa magaci gaabnaa oo aniga username-ka noo ahaa Amir 45 halkoosana passwordkii ayaan gelin doonaa kadibna login ayaan dhihi doonaa markaan login dhahno kadib si automatic ay u gali doonaa markuu galo kadib qaabkan ay u furmi doonaa sidaad arkaysaan waa wada zero wax lacag ah hadeer kuma jiraan application-keena wayna soo ogolaadeen marka inta haddii alla idmo si step by step ayaan wax walba aan u arki doonaa iyadoo lacag soo galaysa iyadoo oo markaas oo aan lacag shaqeynayno oo maalin walba oo aan ku xisaabtami doono ayaad arki doontaan haddii alla idmo midkaan daraadiin ayaan u sameeyay halkaas ayaan taaban doonaa oo ay ku qoran tahay sidaas xariijimood oo qaybta menu-ga ah kadib waxaan kasii dooran doonaa halka ay ku qoran tahay promo codes markaan ku dhufano oo markaan taabano sidaad arkaysan haddeer inooma samaysna wax promo code ah halkaas currency ay ku qoran tahay lacagta ayaad ka dooranaysaa waa muhiim inaad lacagta ay USD ay ku ahaato iyo lacagaha kale way u baahan inaad sarif mariso kadibna generate promo code meesha ay ku qoran tahay ayaan taaban doonaa generate promo code markaan taabano sidaad arkaysaan wuxuuna leeyahay promo code-kaaga oo ID numberkiis intaas yahay waa la abuuray ayna leeyihiin ma sidaad arkaysaan qaybta hoose ee promo codeskana waxay noogu soo dareen hal promo code ay noogu soo dareen promo code-kan hadda waa promo code anaga noo gaar ah laakiin shirkadda iska leh waxaan rabnaa mid kale inaan sameyno midkaas promo code ay ku qoran tahay 1x oo tiradaas ay ku qoran tahay waa promo code-keena si ku meel gaar ayaan u isticmaali karnaa si aadi ah waad u isticmaali kartaa haddii aadan u baahnayn promo code ku gaar ah inaad samaysato midkaan ayaad isticmaali kartaa sidaasna ayaadna lacag kaga samayn kartaa aniga hadda waxaan u baahannahay inaan samaysano promo code cusub inaan samaysano si aan u sameyno promo code cusub waa inaan dib ayaan u laaban doonaa oo halkaas menu main page ay ku qoran tahay aan taaban doonaa markaan taabano main page-ka hore oo home page-ka ayuu dib inoogu celin doonaa home page-ka markaan imaano halkaas ay ku sawiran tahay madaxa ayaan taabanaynaa markaan taabano kadib affiliate ID meesha ay ku qoran tahay ee sare affiliate ID-gaas ayaan soo koobiyin doonaa midkaas ayaan u baahannahay ilaan waxaan rabnaa inaan samaysano promo code oo magac anaga noo gaar ah inaan samaysano ayaan rabnaa ID-gaas waa muhiim waadna u baahan tahay ID-gaas ayaad soo koobiyeysan doontaa ID-ga markaan soo koobiyeysano kadib halkan dib aan ugu laaban doonaa oo saddexdii xariijimood ee midigta ayaan taabanaynaa markaan taabana kadib waxaan imaan doonaa meesha ay ku qoran tahay contacts si aan ayagu ula xiriirno halkaas markaan sii taabano kadib support gmail-kaas oo supportiga ah ama qaybta caawinaadda ayaan sii taaban doonaa markaan taabano kadib waxaan kasii dooran doonaa gmail-ka ayaan kasii dooran doonaa hadba waxay ku xiran tahay application-ka uu mobilkaaga uu ku jiro gmail-ka ayaan kasii dooran doonaa markaan kasii doorano kadib wuxuu inoo gudbin doonaa gmail-keena markuu noo gudbiyo kadib halkaas kore waxaad iska hubinaysaa in gmail-kaaga haddii dhowr gmail uu ku furan yahay gmail-kaaga from meeshay ku qoran tahay gmail-kaaga oo 1XPARTNER ku samaysatay inuu yahay ayaad hubinaysaa kadibna codsigaaga ayaad qoraysaa halkaas codsigaaga title-kiisa ama cinwaankiisa ayaad ku qoraysaa halkaas compose email ay ku qoran tahayna codsigaaga caadiga ayaad ku qoranaysaa codsigeena ayaan halkan ku qori doonaa codsigeena markaan qorno kadib new promo code meeshay ku qoran tahay promo code-keena asal 45 ayaan u rabnaa halkaasna may affiliate ID ay qoran tahayna ID-ga aad soo koobiyeysatay oo 1XPARTNER-kaaga ayaad basta aad ku dhihi doontaa markaad basta aad dhahdo kadibna waad diri doontaa codsigaas ayaad dirsan doontaa 24 saac gudahood ayaga ay kugu soo jawaabi doonaan qaybta oo promo codes markaan dib u laabano aan idin tuso oo qaybta menu-ga aan tago kadibna aan kasii tago promo codes markaad taabato markay ku soo ogolaadan kadib halkaas aad imaanaysaa halka haddeer oo halkaas promo code oo generate day aan dhahnay inoogu jiro halkan ayuu soo gali doonaa promo code-keena labaad oo ayaga aan codsanay halkan ayuu soo gali doonaa promo code magaceena uu ka samaysan yahay marka waxaan filaya intaas inaan isla fahanay muuqaalka xiga ayaa inoo balanaa haddii alla idmo wabilaahi towfiiq way soo ogolaadeen promo code-kii aan samaysanaynay
haddeertaan waxaan isla aadi doonaa 1XPARTNER account-keena ayaan furan doonaa oo login ayaan dhihi doonaa. si aad login u dhahdo falaarta ayaad taabanaysaa, kadibna userkaaga iyo passwordkaaga ayaad gelinaysaa, login ayaad sii taabanaysaa. markaad login dhahdo kadib wax yar ayaad suganaysaa intuu refreshka uu kasii qaadanayo page-ka. kadibna waxaan kasii tegi doonaa qaybta saddexdaas xariijimood ee dhankaaga midig. sidaad arkaysaan waa wada zero, wax lacag ah kuma jiraan. waxaan tagaynaa qaybta promo codes ayaan kasii tagaynaa. promo codes markaad tagto sidaan ogeyn hal promo code oo aan generate dhahnay ayuu noo samaysnaa. promo code labaad ay ku dareen sidaad arkaysaan waa asal 45, waa promo code-kii aan dalbanaynay shalay toole. promo code-kan asal 45 ay ku qoran tahay. promo code-keena oo noo gaarka ah weeyaan. promo code-ka in ku gaarka ah wuxuu ku fiican yahay inta badan waa magacaadan ilaabaynin oo mar alaalo aad fursad u heshid ama qof uu ku dhiibo oo ku yiraahdo 1xbet ii sameey aad uga sameyn karto, ama isla markii qofka haddii afka aad ugu sheegto xitaa uu isku diiwaan gelin karo. marka promo code-kaas ayaan koobid oran doonaa. kadibna waxaan rabnaa inaan ID cusub aan qof aan ugu sameyno. promo code-kaas inuu qof aan ku diiwaan gelino ayaan u baahannahay. marka isaga ayaan copy dhahaynaa, misana haddii rabtidna aad ayaad u qoraysaa waa asal 45. waxaan dib ugu laaban doonaa oo aan aadi doonaa applicationka 1xbet ayaan aadi doonaa. markaan aadna kadib halka kore Soomaaliya u daa ama wadanka ka dooro, qaybta labaadna lacagta ka sii dooro, qayb saddex casino iyo X game, qaybta afraad promo code ay ku qoran tahay promo code-kaaga aad gelinaysaa waa asal 45. marka promo code-kaaga geliso saddexda meelood ee hoos ayaa tig saaraysaa. kadibna qof walba ayaa yaqaana sida loo sameeyo 1xbet ID. sidaad arkaysaan ID-ga waan sameynay, screenshot ayaan ka qaadi doonaa si aan u sii keydsano. kadib koob ayaan sii taaban doonaa, login ayaan oranaynaa. login markaan dhahno kadib oo gudaha noo sii geliyo waan save garaysanaynaa passwordka. kadibna waxaan rabnaa inaan profile-kiisa aan buuxino. sida loo buuxiyo profile-ka qof walba ayaa garanaysa. ID ayaad ku dhufanaysaa, fill in personal data ayaad kusii dhufan doontaa, kadibna profile-ka ayaad buuxinaysaa. profile-ka markaad buuxiso kadib waad save garaysanaysaa. sidaas ayaad u sameynaysaa, ama sidaas ayaad qof ugu diiwaan gelin kartaa promo code-kaaga, ama qofka ayaad u sheegaysaa isagaa is diiwaan gelin doona. intaas waxaan rajaynayaa inaan isla fahanay. koowaad oo aan u register garaynayno 1xPARTNER anagoo adeegsanayna promo code-keena noo gaarka ah. waxaan dib ugu soo laaban doonaa 1xPARTNER-keena ayaan dib ugu soo laaban doonaa. markaan imaano kadib qaybta promo codes sidaad arkaysaan 1xPARTNER-keena waa wada zero. si aad u ogaato dhaqdhaqaaqa 1xPARTNER-kaaga waxaad tegaysaa meesha ay ku qoran tahay yesterday, today aad kasii dooranaysaa haddii aad rabto inaad ogaato dhaqdhaqaaqa maanta. haddii aad rabto sidoo kale inaad ogaato dhaqdhaqaaqa shalayna waxaad taaban doontaa yesterday aad ka dooran doontaa si aad u ogaato dhaqdhaqaaqii shalay toole ama lacagihii ay ku siiyeen shirkadda. sidoo kale waxaa ku soo wareegatay waqti ayaa ku soo wareegatay oo saacada ah. dib ayaan u gali doonaa si aan u ogaano promo code-kii aan sameynay wixii oo markaas commission aan ka helnay. markaan login dhahno kadib meeshii zero ahayd waxaad arki doontaa in hoogaa sintiyaal ay noo soo galeen. waan isla arki doonaa insha Allah. sidaad arkaysaan 12 sinta ayaan helnay yesterday shalay toole, saacado ayaa ka soo wareegatay. haddaan tagno qaybtan hoose oo yesterday ayaa inoo dooran, mar walba yesterday ayaa ku dooran. haddii aad rabto inaad ogaato dhaqdhaqaaqa maantana today ayaad dooranaysaa. haddeertaan maanta ma jiro wax dhaqdhaqaaq ah, waayo hal registration ayaan sameynay sidaan arkaynay. sidaas darteed waxaan dooranaynaa yesterday ayaan dooranaynaa shalay toole dhaqdhaqaaqa aan sameynay. ilaa xalay ayaan waxaan ogeyn inaan isla sameynay hal promo code aan idhaahday hal ID anagoo adeegsanayna promo code-keena noo gaarka ah. hal qofood ayaa is diiwaan geliyey 45 senti ayuuna ku shubtay qofkaas, $0.5 ayuu ku shubtay saan filaayo. kadibna waxaan helnay lacag gaaraysa 12 senti ayaan helnay. marka 1xPARTNER-keena meeshii zero wada ahayd sidaan arkayno haddeertaan hoogaa sintiyaal ay noo bilowday. marka waan iska hari doonaa, logout ayaan dhihi doonaa.
dhaqdhaqaaq walba waan isla arki doonnaa haddii alla weyn uu oggolaado.